wasiirada gudoomiyaha maxkamadda sare xeer ilaaliyaha qaranka gudoomiyaasha baarlamaanka dowlad goboleedyada taliyaasha ciidanka waxaan ku salaamay salaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh mudanayaal iyo marwooyin waxaa fursadan waxaan ku faraxsanahay inaan maanta oo ay taariikhdu tahay 10ka bisha Maarso 2018 aan si rasmi ah u furo kalfadhigii saddexaad ee labada gole ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaan fursadan qaaliga ah aan uga mahadcelinayaa guddoonka iyo xubnaha baarlamaanka labada gole anigoo u gudanaya waajibaadkayga dastuuriga ah ugu horeyn waxaan eheladooda iyo ummadda Soomaaliyeed uga tacsiinayaa geeridii ku timid xildhibaan Bootaan Ciise Caalin iyo xildhibaan Saciid Xasan Geedi waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu naxariistiisa jannadiisa siiyo eheladoodiina samir iyo iimaan uu ka siiyo waxaan sidoo kale si gaar ah ugu tacsiinayaa dhammaan intii ku dhimatay falalkii arxan darrada ahaa ee argagixisada iyo kuwa ku dhaawamay inuu Ilaahay caafimaad degdeg ah u siiyo waxaan si gaar ah ugu tacsiinayaa qoysaskii shuhadadii ciidanka qaranka ee geeriyooday ayagoo si geesinimo leh dalkooda iyo dadkooda uga difaacaya kuwa nabadiidka ah ee gumaadka ku haya Soomaaliyeed waxaan inuu siiyo naxariistiisa jannadiisa eheladoodiina samir iimaan ka siiyo intii dhaawacantayna waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu si degdeg uga kiciyo mudanayaal iyo marwooyin waxaa la ii doortay iyadoo dalka uu marayo marxalad aad iyo aad u adag ayna jiraan abaaro xaalufiyay dunyadii iyo degaankii mararka qaarkoodna ay abaarahaasi galaafteen dad shacab ah waxaan dhaxalnay dagaalo adag oo lagula jiro kooxaha argagixisada ah ee caadaysay inay dhiigga shacabka Soomaaliyeed xaq darro ku daadiyaan ayagoon u naxayn hooyo aabe caruur iyo walaaltoonaba waxaan dhaxalnay hay'adaha dawladda oo aan u diyaarsanayn inay nidaamka dawliga hoos u daadejiyaan mudanayaal iyo marwooyin waxaan Ilaahay mahadiisa ah in golayaasha baarlamaanka iyo laamaha kala duwan ee dawladda ay gacmaha ishaystaan oo ay wada shaqayn buuxa lahaayeen taasoo keentay in wax badan inoo qabsoomaan wax badan oo inoo dhiman yihiin
ay xaqiijinayaan waddan kasta oo Soomaaliya u helo ama uu heli karo adeegyada aasaasiga ah ee bulshadu nagu leedahay si ay dawladdu u xaqiijiso in nabad waarta la gaaro waxaa dadweynaha aan ku boorinaynaa inay bixiyaan canshuurta si dawladdu uga kaaftoonto dawladaha shisheeye ee yaboohooda markaas dawladdu waxaa u fududaanaysa inay bixiso mushaaharaad ku filan ciidankeenu mushaar fiican ma qaato shaqaalaheenna mushaar ku filan ma qaataan laakiin haddaan canshuur aruurino waxaa noo fududaanaysa oo noo hirgelaysa inaan mushaaharo fiican aan siino waxaa kaloo noo fududaanaysa inaan xoreyno qaybaha ay cadowga al-shabaab ay uga sugan yihiin dalka waxaa noo fududaanaysa inay bixiso adeegyada bulshada iyo inaan dhisno kaabayaasha dhaqaalaha waxaan dhowr mar aan ku shaqeeyey oo aan tegay wasaaradda gaashaandhigga si aan ugu kuurgalo xaaladda dhabta ah ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo howlo maalmeedkooda guud inaan ogaano waxaana ii caddaatay inay ka socoto shaqo xoog leh oo ay ka mid tahay sidii tirakoob rasmi ah iyo dib u habeyn loogu samayn lahaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dhinaca kale waxaa dawladdu iyadoo la shaqaynaysa dawlad goboleedyada dhamaystirtay qorshihii abaabulka iyo howlgelinta ciidanka sidii aan dalka uga xoreyn lahayn cadowga al-shabaab ciidamada amnigu waxay guulo la taaban karo ka soo hooyeen ammaanka iyo xasiloonida caasimadda dalka ee Muqdisho inkastoo shaqooyin badan loo baahan yahay in la qabto ay noo harsan yihiin waxaa dawladda ay ka shaqaysay sidii kor loogu qaadi lahaa kalsoonida iyo wada shaqaynta ka dhaxaysa shacabka iyo ciidanka qaranka tani waxay muujinaysaa in muhiimadeena koowaad ay tahay amniga mudanayaal iyo marwooyin dawladdu waxay dejisay istiraatiijiyad difaac dal waana annagoo la shaqaynayna dawlad goboleedyada bilownay isku dhafka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed isku dhafidda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay fududeynaysaa inaan mideyno awoodeenna iyo cududeenna si aan dalka aan u xoreyno waxaa dhinaca kale ee ka socda dadaallo loogu jiro sidii annagoo kaashanayna AMISOM African Union European Union iyo qaybaha kale ee bulshada caalamka aan si dhammaystiran ugala wareegi lahayn mas'uuliyadda nabadgelyo ee dalkeena muddo dhow gudaheeda aan ugala wareegno waxay arrintaasi marka ay hirgasho suurgelinaysaa in aan annagu qaadano mas'uuliyadda nabadgelyada dalkeena labo in walaalaheenna AMISOM aan ka nasino culayska aan ku hayno ee ay har iyo habeen u taagan yihiin difaaceenna dhiigoodana noo huri jireen iyo weliba inaan wadamada deeqaha bixiya aan ka nasino culayskii dhaqaale ay ku bixin jireen difaaca dalkeena si himilooyinkeenaas difaac aan u gaarno waxaa shacabka Soomaaliyeed aan ka codsanaynaa inay garab istaagaan ciidankooda geesiyaasha ah dhinac walbaba waa inaan ka qayb qaadanaa dawladda iyo shacabka difaaca dalka waa inaan dhaqaale ku bixinnaa dib u dhiska iyo taageeridda ciidanka qalabka sida waa inaan xoogga saarnaa sidii aan uga difaaci lahayn dalkeenna argagixisada ku soo duushay mudanayaal iyo marwooyin inkastoo ay kooxaha nabadiidka ay dhibaato amni xumo ah ku hayaan dalkeenna haddana qaar badan oo ka mid ah waa la khalday sidaas awgeed waxaan rabnaa inaan mar kale aan ku celiyo in aan cafis u fidinno cid kasta oo isoo dhibtana kana toobad keenta falalkaas hoosh xun ee argagaxsanimada ahaa
waxaan dadkii soo dhiibay siin doonaa daryeel aysan ku dhaxaysan kooxihii ay horay ay uga tirsanaayeen. ilaa haddana horjoogayaal badan ayaa soo dhiibay oo gacanta dawladda soo galay, waxaana dawladdu Soomaaliyeed ka rumaysay ballantii ahayd inay soo dhaweynayso ciidankaas oo ka soo baxa kooxaha argagixisada ah. mudanayaal iyo marwooyin dawladdu waxay dadaal badan ku bixisay sidii maamulka hawada Soomaaliya loogu soo celin lahaa dalka. shaqo adag kadib waxaa Ilaahay mahadiisa ah in dawladdu ku guulaysatay in maamulkii hawadeena aan dib u soo ceshanno. waxay arrintaasi qayb ka tahay ama ka ahayd xaqiijinta madax bannaanida dalkeena iyo qarnimadeena oon marnaba gorgortan gelin. waxaan idin xaqiijinaynaa inaan sugi doonno ilaalinta iyo maamulidda hawadeenna, ilaalinta xuduudaheenna dhulka, badda iyo cirkaba. mudanayaal iyo marwooyin dhinaca kobcinta dhaqaalaha waxaan Ilaahay mahadiisa ah inay dawladdu suurta gelisay in dakhliga dawladda oo ahaa 4.6% sanadkii tagay sanadkan maxaan ku raahdaa la gaarsiiyey 7.2. taasi waxay sheegaysaa in dakhliga guud oo uu kor u kacay 3.4%. kor u kaca dhaqaale ee aan sanadkan gaarnay waxaa sabab u ahaa inay dawladdu la dagaalantay musuqmaasuqa iyo hufnaan la'aanta. waxaanan idin xaqiijinaynaa inaan sii wadi doonno la dagaalanka musuqmaasuqa. si taasi ay u hirgasho waxaa xukuumadda ay meel marisay sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa oo haatan hor yaal aqalka sare, kaas oo aan rajaynayno in aqalka sare uu ansixiyo sida ugu dhaqsiyaha badan, sidii sharafta lahayd ay golaha shacabku ay u ansixiyeen sanadkii la soo dhaafay. waxaa sidoo kale idin hor yaalla in ku dhow 14 ilaa 15 hindise sharciyeedyo iyo heshiisyo caalami ah oo marka la ansixiyo hawsha dawladdu ay wax badan ka bedeli doonto. sidaas awgeed waxaan xildhibaanada sharafta leh aan ka codsanayaa inay sida ugu dhaqsiyaha badan u ansixiyaan sharciyada hor yaalla iyo kuwa kale ee ay xukuumaddu ay soo wado. mudanayaal iyo marwooyin waxaa xusid mudan in hay-adaha lacagta adduunka ee loo yaqaan IMF iyo World Bank ay qoraalkoodii ugu dambeeyey qirtay in qaab xisaabeedka dawliga ah ee Soomaaliya uu yahay mid hufan oo daahfuran. hufnaanta maaliyadeed ee aan muujinay waxay noo sahlaysaa in laga cafiyo deymaha tirada badan ee Soomaaliya lagu lahaa. sidoo kale waxaan xaqiijinay dawladda mushaharadoodii si toos ah ugu dhacayooyinkooda, taas oo meesha ka saartay in la musuqmaasuqo xuquuqda shaqaalaha marto. mudanayaal iyo marwooyin si dalka ugu galo xasilooni siyaasadeed, mid dhaqaale iyo mid amni ayna